السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابة دمان وإذين سلامة انتي مقعيقي موقعيقي تقانو وانيقو حمد على فارحة سلامة مسلم كده سيدين كل سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرت الصومالي محمدي waxaan idin sheegayaa qofka bili aadanka wuxuu ahayn ma noqdo soo waxa garatay maaha wixii lagugu tilmaamanay waxa adiga tahay oo cadeen lagu haayo oo dadka caan ah ka tahay waa noqoneen Sacuudi Carabiga intaas sano aniga jooga aan ku noolahay 17 sano dhex deganahay ilmaan ku dhalay ilmahayga Muqdisho joogo dadkayga joogo Soomaaliyan deganahay intaan maxay ahayd intaas aan wax ku dhalay aan ku barbaaray anigoo yar wada ka soo galay soo wax garteen ma kulli hooyada dhibaataysan waxaan leeyahay dhibka Ilaahay ka qaado ma fahmino dhibka Ilaahay ka qaado Ilaahayna yaani gabadheeda haday u dhimatayna qiyaamo Ilaahay ugu shafiico maalinta qabri yawmal qiyaamo haday noo shahayna kulli Ilaahay sahla kulli bil aadan anaga soo ku neef laanahay mana sheegi karna inay dhimatayna ma naqaano وانا شاينا ما دهي كرنا وهذا اللي عام قلي بس ليه هايستا قفك بلادك محو إشي سساري وكهد لا صراحة قرد سما كل أنا هاد وإيد عايديسي لكن إلهي وين وحدك أنا كلا قبنا أنا إيده إلهنا وقود عوضي قف بلادنا وقوم تعونا بلادنا يعني بلادنا وحس كما قاعد كرو طيب دولتي وبديقتني وحا أقلهاي أن ديار لهاي أنا كو قناع سنهاي haddaan aniga gabadheeda iibsaday ama aniga aan gatay ama aniga aan lukuleeyahay oo qof wiilan dad iibsado Sacuudi Carabiga kama qadaameen marro magaalada meesha raba ka mari lahay soo waxa garatay ma Sacuudi Carabiga waa taqaan qof bil aadan lagu ma iibsado ma gafana ma ahan oo aniga aan gabadheeda ama aan ka qariyay ama aan carab shaqo ugu saaray aan ka qarinayo cadeynta iyo cadaaladda in la soo saaro oo la igu soo cadeeyo ana diyaar u ah waxaana diyaar ugu ahay waayo qof dambi galay inuu ku jiifto waaye habeen iyo maalmo bariya dambiga lagu qabana ma samaanto Soomaa ilaa waxa sameeyay kama naxaysid laakiin waxa la sameeynin hadii lagu caay iyo hadii lagu amaano ma kala jeclidbo soo waxa garat Soomaa laakiin waxaan diidoyaa dulmiga bilaadanka lama dulmiyo laakiin waxaan leeyahay xasbunallah wa ni'ma wakiil xasbunallah wa ni'ma wakiil say ii dulantay ee beenta iiga sheegayso insha Allah horteed Ilaahay dhigo soo waxa garatamaan gabadheedana haday u nooshahay Ilaahay meesha ku jirta ugu soo bixiyo haday dhimatayna Ilaahay ha u naxariisto oo Soomaaliya meesha wada dhimatay eelkeena ku dhinta dadkeena ku dhinta eelade boqolana qaana buurtan ku wada baabaado waa Sacuudi Carabiga taani shay waxaan la yaabanahay hadalka ay soo duubtay say naas ugu mahadlin bilaadanka waxa roon inuu qalbiga wixii ugu jiro oo ka hadlo gabadheeda markay leedahay ma soo tahriib sharciga ku soo gashay Soomaali Maxamed waxaan idin su'aala ma boosaaso iyo Yemen afiisa lagu soo galo horta waa koow mukalla doomana jiro oo lagu soo baxo faanti baasaboorkaada ku iimaanay fiisa wax la dhahay la soo goosto go'am oo diyaarad soo gasho horta ma jirto waa mid koowaad mid labaad gabadheeda waa leega afduubtay markay leedahay bal hadaladeedo dib u dhageysto iyo hadalkayga isku fiiriyo gabadheeda markay leedahay daawaan u soo dirsaday yaani qof xanuunsan eedo daawaan u soo dirsaday waxa ugu soo diray in meesha yaani ay takhtar u tagto Soomaa si hada sheegaysa kulli hadaan been sheegeen okay Yemen ma meel iska afduubta ma ahan okay maharib ay u tagto Soomaa maharibka ay leedahay lacagta Sacuudi Carabiga ugu diraa Soomaaliya inta taqaano oo Sacuudi Carabiga la joogta Yemen ma lacag lagu diraa ma Sacuudi Carabiga lacag lagu qaataa lacagta ay leedahay shirkad daabshiil aan u dhigay raqam oo Sacuudi uga soo wacay waxa ugu dhigay ay leedahay Sacuudi Carabiga dadka Yemen jooga Sacuudi Carabiga horta lacag looga qaataa waa mid mid koowaad dadka Yemen lacagta looga qaataa soo waxa garatamaan okay Yemen lacagta looga qaatay way soo dhiibtay okay buurtiya la keenay si sheegaysa lacag laga qaatay sax watan buurta laga qaato walaalaha laga qaataa dadka dhina laga qaataa macruuf waayo okay hana qota aniga gabdhaha waa la sheegay laakiin wixii leega sheegay iyo waxa maqlay baan ka hadli karaa dhaayahayna maana saaran mana isoo gaarin sawirkaas umada Nabi Maxamed ay arkaysa aniga aan arkay waxa ayna ma arkin okay waxa idin su'aalaya gabdhaha walaashay haday ila socoto waa aragtay gabdhaha isla soo tahriibaan asxaab yihiin way isla socdaan aniga gabadhan dadkeeda damaam u socdo
xamdiye adiga gurigaada kugu soo deganaya gabdhahaada lagugu soo daraa markay walaalaha ku imaadaano gabadhaas damaama loo dira haddii lee dhaho ma waxaan haleeyey mase gabdho walaashay la socoto oo gabar walaashay soomaaliyeed waa gabar walaashay soomaaliyeed okay midda labaad weebi imaaday sacuudi carabiya ma qof inta bila aadan oo maharibka ugu weyn ha ahaado waana joogteen ilaa ay hadda inta joogina Soomaaliya joogtaa qof bila aadan oo inta carab laga iibsado lacag kaash la qaata la kala gadana wali ma aragteen waa mayo anaga gabdhaha naga la xirtaa waa lacaga shubna waa Ethiopian dad Soomaaliya nahay muslimiin nahay diintan ku dhaqanaa laakiin haddii inta qof bila aadan inta guri lagu soo aruursado guriga laga wado la iibsanayo carabta laga iibsanayo Soomaaliya adika commentiga igu soo qoraysiin oo Sacuudi Carabi ay jirto oo Soomaali iyo Carab ay wax kala gadato laakiin haddii Ethiopian inta buurta qofka ku qabsato meelaha baadiyo kale oo yaani buurarka gabdha la qabsaday oo inta la xoogay lacag laga qaatay lacagta aan ka shubnay ayagoo bahdilno dabada midi looga soo jeexjeex anaga noo la keenay okay islaantan ayada waxaan ku haystaa dhehayso aniga Sacuudi Carabiya dawladda joogto waxba way ii qaban waysay xaqiiqada iyo runta hadda aragtay waa ina qanacdid anaga fiiri dadkeeda soo dirsatay waana la soo dacweeyay ma fahanti waa lay weydiiyay raqamkeyga dad soo siisay waa lay weydiiyay waxaan dhahay bari aniga gabadhaada ma arkin gabdhii la socday waa ii imaadeen dadna waa la qabtay laakiin aniga gabdhii la socda hadalkooda waxaan ka hayo waxa waaye 5 gabdhood aan baawar ku saarneen 5 gabdhood aan baawar ku saarneen shurda la arkay horta hadalka idin kala soo tagin gabadha waxa lagu dhahay buurta meel oo baqaala ahmar la dhahay guduud ninkii yaqaano ayadoo la jiifo inta shurda la arkay la kala carray ee gabadha god ku dhacda lagu dhahay gad markay ku dhacday dadkii dhan dardaray gabadhana sida la sheegay waa gabar amaliye ahayd oo habrteed dhammaan joogto u socotay oo daawo loo soo diray gabadhi waxa lagu dhahay kaadi burtamiya ma aqaano iyo amaliyada isku furantay gabdhihii ila socdaan laba gabdhood walaal la socdeen oo ii imaado ilaa hadda naadirtaana joogo oo ila joogo gabdhihii la qabtay oo maxay tahay askarta qabatina ayada inta boosaaso ku xiratay ay soo wareysatay hadii Ilaahay taqaano oo rasuulkiisa ay taqaano oo qof xaq u hadla ay tahay waayo cadaaladda markii la imaadana waxaan runayn ma soconayso wax walba runtii xaqiiqada iimaanaysa gabadhi waxay maxay ahayd dhaheen yani marwa gabdhii la socdo dharkaaga bedelayna daqiiqad kadib baatiga loo geliyay bajaq waayo qoyaana ka socday okay 5 gabdhood ayagoo gaari lagu soo saaraa lagu dhahay gabdhii gaari marka la soo saaray sabyo meel u dhow maxay ahayd shurdo ee baawurka oo arkay shurdadii markay aragtay gabdhii waxay dhaheen wixii fududay waa la kala booday waa kala caran ayada waxa lagu dhahay qof tacbaane oo bilaan qoyaan iyo dheecaan ka socday baheed ma dhaqaaqan wixii tiri shurdo ma aha barta safariisana bartii fadhiisatay macalinka si loo sheegay wuu cararay gabdhii waxay meel oo cadiimiya duurkay kala galeen waa la isku soo noqday marka la isku soo noqday oo shurdadii ay baxday ninka uu soo noqoy gabdhiisa ay u sheegay waxay dhaheen gabadhi soo baxaa wixii tiraahday ma baxaaye tacbaana ah ani khalaas shurdadii ma ahana waxa laga karto shurdada raba inay qabato okay waxa la dhahay maxay aheeto ninka carabtu way ka diiday bartii lagu soo dhaqaaqay gabdhihii ninka carabka uu soo waday sabyo keenay sabyo marka uu keenay gabdhihii xoosh ajir sabyo lagu keenay qofkii qof ku socdo qofkii saawad aniga laba gabdhood ay la socotay labada gabdhood gurigan keensaday ayada hadda dhaysa gabdhii la socdo dhan guriga xamdiya la geeytri Sacuudi Carabiga waa taqaana qof walaashii jidda joogto qof riyaad joogo qof damaam joogo qof walba qofka ku socdo ehelkiisa oo Soomaali looga soo furmuuqay oo uu iimaanay inta ugu soo koreeyo waa waxa ogtiina taqaaniin qofka iska socdo oo guriga iska tagaa ma jirto okay warka idin soo kala moodine maxaa la dhahay gabadhi bartii ninka ugu soo dhaqaaqay marka ugu soo dhaqaaqay gabdhii sida ay sheegeen waxay dheen gabadhaas khalaas waa tacbaanay ahayd marka noogu dambeysay xataa wixii tiri khalaas wadnaha istaaga rabo biyo dhehaysa okay waa la soo wacaaniga duqowgiya soo wacay gabdhii waxaan dhahay labadaas ay soo gaartay gabdhii kaleentane maxay ahayd to maxaa la dhahay qaar shurta qabata la dhahay gabadhina banaanka looga soo tagay oo ninka carabka way diiday ninka carabkane أول شرطة لقى عرها هذا المركب لبعض قصة نقدين ويدي دي نينك هو عبسده وقصة تجيه أنا مهم وري أنا كنت أعلن جبدي وحين قطبه ولا يصوعني
raqamkayga la soo siiyay islaanta waxay tiri habarey gabadhaas noocaas saddex magaca gabadha lagu sheegay ana ma aqaan mid mar faraxa la dhahay mar ugbaad miya ma aqaan marna magac kale la sheegay saddex magac lagu kala weydiinay waxaan dhahay habarey gabadhaas waxaa la sheegay inay gabdhihii shurta ay gashay baawarkii ay ka carareen ayadan ay diiday ay bartay fadhiisatay ninka carab ku noqdana ay diiday ninka carabkana barta u soo tagay sheekadii waxay ahaato islaanta way soo wacday waxay tiri gabadhayda shurta haday qabatay kulli way iimaanay habarey ma aqaanaan dhahay kulli aniga sida leegu dhahay shurda qabatay ma fahmino xaqiiqna uma hayo laakiin haday shurta qabatay kulli ori maxay tahay 20 biri ama 2 isbuuc lagu jiraya waana ku iimaanay illa waa dareemi kara hooyo waaye aniga gabdhaan dhalay ilma ii joog ilaahna wada dhaaf ayadana qabrigeed ilaahay u qaboojiyo waxaan dhahay habarey iska sabar okay muddo ka soo wareegatay markay muddo ka soo wareegatay wiilal la igu soo diray wiilish marka la igu soo diray inaaga oo joogeen damaam iyo adiga wax meelahan joogay jidda dhexdeedii waxa la dhahay tuuga tahay gabadheena waa iibsatay waa yeelatay waa kan waxaan dhahay habarey ana hadaa iibsaday wax walba cadeynay leedahay Soomaa cadeeytan ha la igu soo cadeysto aniga markaa iibsaday dadkii joogo marqaatiga ahay ilaa way ila ogyihiin ama goob joogay ahaayeen cadeyn ha la igu keeno hadaa aniga gabadhaada iibsaday ama gabadhaada aniga aan watay ana qubkeeda diyaar u ah soo waxa garata ma aleego cadeyn la keenay almiin aflagaatay wax noqotay khalaas ana waa iska tanashimoba aan ka qaban markii dambeeto ilaa qof bilaadan oo qofka maqan yahay qof raadinayo qofkina waa dhigtay ma dhigi kartid waa nool yahay hadii aniga aan la socdo xaaliyi warkaas waxa ka dhiilay soo waxa garata ma waxaan dhahay habarey aniga uma laakiin sida la igu dhahay waa intaas almiin adiga muddo ka soo wareegatay muddo markay ka soo wareegatay haddana waxa la igu soo diray odiga safaaradda waxa dhahay adeero aniga gabadhaas shaqo ku malihi meena isa soo gaarin markaas wuxuu yiri idin ku soo gaarin adiga iyo ninka la dhahay duqow Yuusuf xawada idin la haystaa aniga marka waxaan dhahay aniga xamdi ahaanteeda horta ima soo gaarin gabdha walaalahay la socotay gabdhii la socodna shurta laga cararay ayadana inay diiday ee barta fadhisa ay ugu dambeysay Yuusufeene gaari loo diray gaariga oo dirinay gabdhii waa la saaray nin walbo naftanaba iyo umada waa runta dhibka u yimaado shurta la arkay waa la kala cararay qofka ilaahay badbaadiyo waa badbaadiyo qofkii diida la qabtina waaba la qabtiba ayada maana la qabanin shurtada ilaahay waa ka badbaadi laakiin markii loo noqdin way diiday bartay fadhisay oo qof tacbaana ma dhaqaaqa kale tiri okay adiga wuxuu sameeyaa wiilal cidooda riyaad maxay ta looga soo gooyay safaaradda oo riyaad la tagay safaaradda riyaad markii la tagay jidda lagu soo xawilay jidda waxa lagu soo xawilay adiga nafsi nuur ama nuur oo degan sabyo lagu soo xawilay adiga bil aadan iyo maharbiinta waa taqaana Soomaaliha daanahayna dad waxa jira caado qaadatiyaal oo un dhibka iyo inay balaayo si abuuraan rabo umad ilaahay isku sii diraano waxa la sameeyay waxa la dhahay ninka iyo gabadha xamdi la dhahay guriga degan yihiin aan ku geynaa Soomaali wixii iska banaana maradaada geed ma qabsato wiilki ilaahay amarkiis anigana markaas inta ka soo tagay aan meel qariir oo khamiis agteeda ay imaaday odayga safaay maxay aheeto wiilki oo maxaa la dhahay iyada habrirtay u tahay hadan ee sheegays aan inta imaaday aan niman Soomaaliyeed soo wadeen waxa la dhahay gurigaana degan yihiin dadka gabadhiina gatay wiilki woo baxay shurdo keenay ninka duqow la dhahay xaadarkaas woo joogay woona taagnay ee ilaahay amarkiis markii oo inta baqaalad u dagtay oo wax ka soo iibsanay markuu baqaalada aaday oo baqaalada ku maqnaayne inta baqaalada ku maqnaayne shurdada guriga soo gashay wiil cali dheer la dhahayo ninkii yaqaano oo jooga hadda Soomaaliya isku egyiin qaraaban ay yihiin yani hada familka isleeyihiin qaraabo ay yihiin isku yeeray isku soo qabanada xoogaa yar ninki wuxuu yiri waaba kanaaba ninki gabadha iibsaday ninkan miyaha okay askarti waa la waday waxa la geeyay ninki waa la waday waxa la geeyay saldhiga sabyo waxa lagu qoray inuu qatil yahay oo gabadha asiga dilay oo gacantiisa ku dilay maharib waay waxba ma dhihin sheekadu waxay aataba sabyo markii la geeyay wiilki xabsiga la geeyay qolka waxa la geliyay oo dadka lagu dilo oo dadka maxaa la dhahay dadka dilo la geeyo qatilka inta loo yaqaan ama dadka dilo Soomaali yani oo xabsida la dhigay almuhim sheekadu waxay socoto 4 bilood oo dhalato oo dhamaatay daba socotay markay isdaba socotay waxa la dhahay askarti waxay dhaheen
wiilkan gabadha meeshuu ku dilay nageeya waayo ma hay ninkan ilaa gabar soo tahriibtay waa oo buurta soo martay meel ay ku dhimatay meel ay ku dhacday war uma hay magaaladu iska joogaasi mana la soconin xaqiiqo ma keeni kara waa maya adii saaliskiga daba jiitay maxkamadda la tagay 3 mar wiilka 4 bilood iyo 15 bilood xirnay qofkii oo yaqaan waxa halkaas warkaaga way dhigi kara beenta waa asxaabta almiim waxa warkaaga daalinaya wiilkii waxa taxqiiq la isla maro dacweeyo cadeyn iyo daliil way ku soo bixi weysay waxa la dhahay wiilkan markuu dilayay in marxaati keentid yaa ina maxay aheeto goobta uu ku dilay ana geysad وخلاص هذا ويلكي وروك يعني ماشي محكمة وروا لوجو عدين ولا لوجو ويلكي إسلامات أفر بلاد يشري تبنها بين مركز صومالي الله تحيله صومالي مركز التجي صومالي لقي إلى أمريكس وصل عبتين أيجا يجبديه جبد الله السعودي أو لقبتي أو كاركو دائر لو قبت إسكوبارو في مسور عن أي أو دائر لو قبتي إلى أمريكس بوصاصة جوري فهمه قبل ده يبغى عده هو قال إني تنجع لهاي فهم الله ده وبص عنك dadka doonta soo raro gabadha soo saartay gurigeeda ayagoo joogan haddana Soomaali farmuuq wala soo farmuuq waxa la dhahay dadkiiba joogaba gabadhaada dilay way imaadeen naagti iyo islaantan hadda habar hadlayso magaceeda Fawsiya la dhahay oo gabadha dhashay guriga imaaday dadkii ka xeysatay meesha buuq ka dhacay wiilkii wuxuu wiilkaani hadda xabsi u soo leefay shaqana kuma balaheene maxaa dhacay maxaa la igu haystaa المهم قبليه للسعودي أو حد أنا هبريري أنا قبل هذا واحد متكم مديه كرنو لكن بقول كي بقول نفكم مجرين إن دمتي كساقبه قف بالآدن أو إسلام أنا قبل واتقني وأنا لساقبتي أسكر أنا قبت الصومالي أنا لكاني قف بالآدن أو قف أنت يبصده مجرته قال إثيوبيا أنا جرت ضدك حرته لقتك حرته لعك ضدك ضوعته قف كي العق لديبني ويسود ديسه معروف وايا قف كان العق لقى ديبني يعني أستاذ وهاي ستامة وجراعي سامة ودليس بقول ويلا قانا أنا قاعد ويلا بدنا أكون إنتين وقبل ولا عليه الجوجا أنت سلوا جراعي نفتك بعين قارن كلا جي جبيه دقفك مركي العق ويانا أما ويدلايا أما وجراعي أما وكسوف كنا صنبو إلى سلوا إلى وصبحيا المهم يا وركي دي كوبدنا السحابة وحي أها طبع محل ده هاي ذاتك بواساسك وقبصتي warway ka waysay wixii dhaabare gabadhaado waadigaas ay ku dhacday waadiga maxay la dardaray dadka dhanaa ku kortunteen amaliyada iyo maxay dhaakaada burtiin isku furta maleena qoyaana ka daadanay habare gabadhaasna naf ma wadin way qanacday gabdhii dadkii way soo fasaxday way soo tahriibeen qaarkood waa imaaday waa joogan qaarna yani nasiibkooda alfaan waa la qabtay mas'uul cali waa taqaanay walba nasiibkiisa waa qaar la qabtay qaarna ilaa doo ka soo baxayaan waxaan waridii ka daalna adiga see warka meesha uu ahayd waxay soo dirtay haddana Amoonura joogo kulay anaga sida leeyahay sheegay oo ayaga afkooda aan ka haayo waxa maxal dhahay wiilkii haddana soo noqday Yuusuf xawada haddana arinta lagu soo celiyay waxa la Yuusuf adaa gabadha gaar u dirtay adaan kaarabna adaa gadatay Yuusuf wuxuu yiri aniga shaqo kuma lihi gabadhaas gaariya ilaa diray gaarigana waa u diray waana saaray ma fahmino wix la qabtin waa la qabtay ninkii gaariga idin cadeyna idin horkeena inuu barti gabadha uu soo tagay ee ku diiday ayadoo tacbaan ugu soo tagay in ku shirto ku gasho markii labaad u noqdeen ee diiday ee fadhisa idin geena oo yiri okay wuxuu yiri adiga safaaradda adeer nuur ii keen ninkii amar qambaawrkiisa yaasiga ilaa amarkii sabiya meel isku ballamiyeen ninkii uu wacay ninkii yaxya la dhaasa oo xasuusto kulli hadaan hadda khaldeenin ninkii la wacay oo Yuusuf arinta u sheegay ninka carabka ahay iyo Amoonur iyo wiilka iyada habarta u tahay ay soo dirsatay waa is raacay barti ee gabadha ku dhacay fadhisay ee gabdhaha ugu soo tageen oo inta shirtada ku gashay tagtay ilaa amarkiis ee barti ee fadhisay iyada oo odiga ninka weer bartaana ugu dambeysana iyadoo fadhiso qariye ahayd meesha oo yacni waadi buurbuure okay ninka markuu meesha geey Amoonur iyo wiilkii kaleenta shirtada u imaadeen shirtada meesha la geey shurtadii meelaha wax yar oo waadi oo inay biyo ka cabeysmaa qasad la sheegay meelaha buuraha biyaha wax ku da'aan oo gudgududka ay shurtadii waxay sheegtay in gabar yani qof dhintay oo dilaacay oo yani qof
ilaaha og inay ida tahay inay ahayn ma ogin allah aclam cilmi qayb manin anaga qof inay meeshaas iyadoo dilaacday oo ku qurunti laga soo qaaday dheecaana laga haayo dhiig laga haayo ee taala laakiin waxay dhaheen cadeyntaas waxaa kala bixin kara labadii dhashay waa ina hooyadad iyo aabeed imaadaan dhiig ayagana laga qaado kuwana dhiig laga qaado labadoo la isku fiiriyo okay wiilka askarta markay saas dhaheen ee meesha ay tageen abartii wuxuu yiri habar yar gabadhi ma meesha ma dhiman iyada ma aha islaan kale waa okay qof bili aadan oo meel buur oo joogay saddex birimeed horta haday dhimato allah waa ilaa hadda xaqiiq ma ahayna anaga cilmi qayb maniin ilaah ugu culbo qof bili aadan ee maanta dhintay laba habeen hadoo meesha yaala akid wuu barara wuu dilaaca wuu isbedela ilaah og aniga sawirkaas la arkay المهم حاور يدين كدالنا maxay ahayd waa wiilkii marka askarta meesha sida ku dhaheen wuxuu yiri laba xal leeyo odigi marka inay dadka imaadaan dheecaanka laga qaado idna dheecaankii gabadha oo qofkaas dhintay laga qaado aan isku fiirnaa inay iyada tahay inay ahayn dhiiga saacadeen karo wuxuu yiri anaga ma cadeyn karno meeshii arinta adiga oo ku soo tagay ninkii oo baxay anigoo isoo wacay hadana anigoo yiri imo واي هذا وكوي مانا ما شرط يقول بالله المي هذا صوت تلافك يجي سو هنجبا وحول بليده هاي برتو هذا يجي تجي يمسوي عمر كدب مركز دم بيت وحن سميني محل ده إيشك محو هاي ويل لا بصاص لقى صدري مكلم يلا ده هاي مادين يدوش مكلم مركز مادين سومالي جاجوس يهرمر وحنا هرمر وجار الله نهاي ومحي إيه تانا أنا اللي وجارين وحي تهاي وايو دب ير مركو دعا خفك أنت ماشي حقيقة لقى الرادي لهاي دتك ماشي حمانت لقى ترتر لهاي سمانت لقى الرادي لها دد وحاجرة عادة قادة إيه وما أنت ده خلاص كوب كسبيها يعنتظر للرادي نهارته وين بوحوان أرجني وين أجينا أيجاني يمن عدد لقى صدري المهم باصص يا عند لقى صدري مكلم يمادين مكلم مركي يمادين ويصبح الرقوة يمادين فيريا رقو markay imaadeen wiilkii gabadha kaxeeyay oo gabadha waday oo gabadha yaani Yemen awalkeeda hore inta ugu imaaday lacagta Yemen oo ka soo qaatay oo meesha daa'irkeena baawurka soo saaray oo asigana xuduudka u noqday meesha looga imaaday meel raqwal dhahay marka meesha looga imaaday wiilkii Soomaalida soo jaajusto xal ninka duqool dhaw waa kana duqool meesha markii looga imaaday waa la sheekaystay isma fahansiinin ilaa amarkiis dadkii inuu ka dhax baxal rabay marka uu dhaqaaqay waxa la sameeyay waxa lagu marka uu dhaqaaqay nimankii la bustoolada u qarsan wiilka marka uu dhaqaaqay waxa la sameeyay oo yaani meeshii nimankii ay fadhiyo oo ka dhaqaaqay yaani xabada lugta looga dhuftay xabad markii lugta looga dhuftay dadka dhinac qaylin asigana buur meesha taala yaani soo asii u sheegay asaa wareystay la hadlay buurtii yaani ka dagay meesha askarta waxa iskugu imaaday oo Yemen joogtay waa la qabtay iyaga dhan waxa la dhahay maxay wiilka ku disheen wuxuu leeyahay gabarayna oo wiilka naga watay gabaroo naga iibsaday asi gabadhaas kii kala waay adiga wuxuu bay sheegeen waxay dhahay marka meeshan qariyo waay dawladda idin la gudbinaa waxa loo gudbiyay meel la dhahayo mukalla la dhahayo عتق la dhahayo jeclaa Yemen dhexdeeda waa meesha tageen almuhiim meesha maxay ahayd askarti maxay ahayd oo ku wada hadleen waxa la dhahay wiilka haduu gabadha idin ka iibsaday cadeynta keeno haduu asiga dilin cadeynta keeno wala wax walba daliil cadeyn leeyihiin laakiin Soomaali habeenii maalin wadadaan ay martaa boqol dhimato boqol xuduudka wada taalo oo meeyde oo cidada la aqoon qof buur ku dhintay haduu yahay dambi kuma lahaasi almuhiim wiilkii ayagoo rabo in askarta qaar la heshiino inuu wado oo doon saartaan oo boosaaso ka ridaa rabo xaqa mar walba heeliyo wiilkii ayay af carabi oo yaqaan nimankii ayagoo isla hadla oo fahmay oo qayli wuxuu nimankan inay wataan iyo xadaan oo doon saartaan rabaan askarta meesha soo baxday wiilashii nimankii ayaga la wada hadlay marka la wada hadlay waxa la sameeyay ii sheeg oo wiilkii ayaga askarti iyo nimanka la waxa wiilkan sababta waxaysan maxay tahay hadda dacwo qabtin cadeyn keensado maxkamadda la geena wax walba cadeyn ku kala baxayaan hadda cadeyn haynin oo yaani mala ay tahayne qofka bili aadanka mala lagu ma xiro malana maxkamad lagu ma saaro almuhiim adi markii dabasa warka loo wado waxa la dhahay qalaas wiilkan adinka dulanteen cadeyn ma haysiino adinka wadihi idin kala rabaa ha dhahay adinka disheen xaq ilaa oo ka nool yahay adinka maanta xabad ku dhufateen
tii rabbiyo ku nool yahay waa u qasdisan inaad dashiin sidii yaa lagu laabtay nimankaan imantoodii waxay u noqdeen meeshoodii makaladii awal iyo boosaasadii sii aadeen wiilkaana magaalihiisa hore usoo galay sheekadaana waxaa kasoo wareegatay 3 sano oo juusta ah okay Soomaali Maxamed waxaa idin su'aala qofka maba dhimaninba ka soo qabo 3 sano qof nool nafta ku jirto oo carab laga iibsaday يوم واحد فرصة هلا هل ما الله برت لهالي كرا أوكي وأيضا هذا دهيس إلا إن رسالة إيسا قرطة وحول برسالة يقولوا جيسين جرتي صح إلا إن قرار لسه قرطة وحيد إلا تهوي يسار لسانك كسوقناه أوكي ومد النبي محمد الله سعوته لنا هذا الشيء جويس ودهيس يعني جبدان إنه بورت يعني شرط الله أركي لقر نحي لو وضع دردري جد كود على ومد الدن دردرتي ayada dhan yani gudaha hoos sidii sheegayeen qof isku burbur oo yaataaniin awal gabar xanuunsan oo amaliye Soomaali ugu soo halawday ahayd sheegayeen oo daawo looga soo diray inta ayadan afkaadu ku sheegaysaa yani takhtar oo soo diray Sacuudi uma soo diray ma maqlaysan okay qof bil aadan xoog lagu ma soo wado qof bil aadan xoog lagu ma iibsado fahamino laakiin ani hadda waxaan ka rabaa iyada fariinta qof walba inuu shar dhaaraba oo ummadana Maxamed meel walba joogto Soomaali garteedana loo qaadateedina loo qaad anaa ku qoran hadii aniga gabadha igu soo cadaatay inta aniga guriyan ku noolay ay imaaday oo isheeda is qabteen ama aniga aan gabadhi inta soo kaxay gurigay ana dambiile raali aan ku ahay waayo qofka bil aadanka wuxuu sameeyay kama naxo mana ka qarqaro ileen adiga maanta hadaa dib dad inta ku sameeysid qarisid yoomil ayaam qofkii fashil ma tahay fahamino horta kulay aniga سمعت إيجا ديش لكن قفك بالعادك وحو إيهم كرك من نقناه وحيتري قبلها دنا يبسطها قبل يبسطي أو جذت يعني إلى جويتر أرقام هذا أوكي دتك سمحه وهذا اللي يهين سيدا أصلا هذا الشيء أنا كمان أنت هتعرف بتوضع أو ينقف أنت يبسطي إجتي مال لي وحري دب الرفاض عن صامري شوش محل ده شوش ميدي لا أنت إمال أو دي لا قف كاس رواية أنا هذا كورسا يوسمي إلا Soomaali waa qancina Soomaali wuxuu tiri ninka dhagoolka wuxuu yiri umada dhan maxaan farti igu fiiqday markaas qofta kana oo dulmi loo oo dadka iibsado oo dadka ka dhax shaqeysta ahay xuquuqdeedan in la marsi ana badiyaaro laakiin horta alxamdulillah ilaahanka barya nafteedana waa ku kalsoonahay ana waa isku kalsoonahay ayadana dibka haayo qof noola ka maqan maanta bedelka ayada ay joogta hadaan joog laan bawalwalahay maanta ma dhahay way ku fiican tahay ma ku jisaaray ilaahay qalbigeeda u qaboojiyo فاهمينه gabadheedana hadee dhimatayna ilaahay ha u naxariisto qalbigeeda ilaahay maxay u dajiyo hadee noo shahayna ay meel ku jirtana meesha ku jirto ilaahay ugu soo bixiyo wax kale oo dhigi kar ma laani kuleeto laakiin aniga xamdi ahaanteeda hadaan ka iibsaday ama gabadheeda aan gatay mase gabadheeda dhaydeeda isheeda is qabatay mase guri aan joogay ay imaaday ana dambiile ana diyaar wax walba فاهمينه لكن أيده وحربتها إسك دحضو وحربتها إسك سميسو وايا وما قاده وقف كمقيه وقف يعني قف مركب وقف كمقيه هنا ميل والبوقع مياه ما أنت أنا هدي الله ده أيده بو قبل هذا هبل أنكو أوجاي هبل كي حاجنا يا ما أنت هدي الله ده برت السجوك برت يا كرادنا يا ولا ما يبني لكن واحد الله إله قلبي هكو قبوجيو لكن ما أنت قيامه أنا أيده قرئي الدنيا مسامحاي maalinta qiyaamo qabriga ku kala bixina hadaan noolahay iyadana nooshahay kulay maalinta ilkana wada dambeeyay iyada ayna saacadeeda nafta ka bixin ana saacadeeda nafta iga bixisa laakiin aakhiro iyo adduunyo masaamaxay say beenti iga sheegtay ee masabtay ee beenti igu masabitay ee tir gabadheeda iibsata ee tir gabdhay si hadii lahay xasbunallah wa ni'ma wakiil xasbunallah wa ni'ma wakiil oo ay Soomaalida tahay qofka ka maqan kula yani kuma dhahay maanta yahay murgoonin ha dhibtoonin kuma dhahay laakiin waxa wanaagsan wax huban oo xaqiiqsan ina meel imaadid laakiin insha Allah hada jeceshahay maxkamad email walbane insha Allah yoom al-ayam waxa ilaahay ka baryaya wajigeyga iyo wajigaada ina cadaalad isla hor imaano Sooma hada iga xaq daran tahayne xaqiga ilaahay oo ku tusiyo hada ka xaq daranahayne xaqiga aniga guri buuxan ku jira reeran le ilman le naag la qabo maanta meel degan oo buuxda ahay ma fahamino maanta hadda aniga cunugtaada dib u geystane bari kuweyga ka jeeban yihiin
ama gabar Soomaaliyeed ba aan dhibto waxaan sameeyay waxa la dabnika gub dambasiisoo ka carara qofka walaalka waxa ku sameeysid maanta hadda awood ugu sareysid bari maalin adigana ku qabsanaysaa soo waxa gartama saxaabteedu idin jeclahay waa aniga waxaan taal faarax waxaan idin leeyahay walaalahay hadaatiin sida codkan aan soo duubay in la share gareeyo caalamka la gaarsiiyo meel walba islaantas ani iyada ilaahi aan ku kala harno iyo cadaalad dawladeena dawladda haday diyaar u tahay ee marqaati haysata waxaana ka rabaa aniga naagaha aniga aan iibsaday ee iyada sheegays xasbunallah oo aniga aan gatay oo raqamadeeda ay haysanay ina cadaalad isla imaano sooma aniga insha Allah safaarada meel walba waca tan Soomaaliya noqoto tan Jidda noqoto tan Muqdisho noqoto kullu wala xiriiraya islaanta anaaba taagan bu gabadheeda iibsaday ama gabadheeda aniga aan arkay in la qaabo xaqeeda meel loo marsiyo haday ay qaabo ma dhihaaye xasbunallahu wa ni'mal wakiilan li ilaaha ku deemana saamaxay aqri adduunyo aan qira iyo adduunyo ma saamaxay marne soo waxa garateen Soomaa saxaabteedu idin jeclahay waa walaashin Xamdi Cali Faarax kulay gabadha la soo dulmay loo yiri gabadha iibsata kulay waxa ahay iyo waxaan galay iyo waxaan gudo qof walba waxa ahay agmati oo igu soo reebi kara Soomaa ayadana qof ka maqan ilaahay ha u sikrata sale mar walban aan ugu duceeyna ilaahay haday dhimatayna in qabrigeeda la soo hor istaajiyo reey lagu tasiyo haday noo shahayna ilaahay dibka meesha ku jirto ilaahay inuu ugu soo bixiyo waa hooyo Soomaaliyeed waa hooyo dhibaataysan waa gabar walaashane waa ilmo waa dhalnay kurbada iyo dibka ileeyihiin waa ognahay maanta ma dhahay saas Allah yeelo kan Allah yeelo ma dhahay waayo qof dhibaataysan hooyana waa aqaana ilma dhalay hooyanimada waa fahansanahay dibka meesha yaal gocashada wax walba ogahay lama yaabay laakiin muslimka bilaahi lama been laga ma sheego mana la nasabido wuxuu aheena lama dhaho war wuxuu dad ku sheegay lagu ma dhaqaaqo illa yaqiintaada Soomaali wixii tiraade ishaada waxay saarto ama qofkii cad oo marqaati ah intiba ma hayso inta soo dhibaal soo maray Sacuudi safaaradeeda laga dacwooday wiila xabsi galay Yemen ninkii dhaawaceen ee dil ee xabad ku dhifteen maxkadana xabsi maxal dhaay sijina isla tageen waalis dacway cadeen way weysay tayib intaas ka badan qofka bili aadanka waxa u roon inuu qalbigiisa qaboobsado hadii gacan ka qadarna ka haysatan ilaahay inuu ugu soo fakiyo hadii uu dhimatay qabrigeeda waasicida ugu duceeyo ma ahan qofka bili aadanka in la ijaafeeyo social media la soo dhigo la dhaa qofkan tuuga waayo dadka uu gataa kana horta qofka wuxuu ahayn marna ma noqonayo aniga Xamdi Cali Faarax waan ahayn ma noqono horta waxaanan igu dhici rabin ilaahay wuxuu ii qoray ugu dhacay bilaad horta waxa igu sameeyay kana in kastana ana diyaar u leh ana ula taagan meesha rabta aan ku kala bixina laakiin waa sharuud dadka aniga gabadhaha aan iibsaday ayada afkeeda ka soo baxay oo ayada raqamadooda ay ee la xiriirta wayna cadaalad soo hor istaagan marka saxaabay insha Allah khayr idin rajayna waa idin salaama waa walaashin insha Allah share halay dhaho halay maxay tala share galeeyo caalamka dhan halay gaarsiiyo waayo ayada dhib haysto ana qofka lama sabitay ahay kulay hadaa aniga ahay gabadha inaan wax ka ogahay ama aniga dib u geystane saxaabay waxa idin dhaha faataxada lay soo mar xaqeeda inuu degdeg ilaahay iga soo bixiyo waayo hadaa ogahay ama gabadheeda arkay ama gabadheeda aan guri iskugu imaanay ama ishayda dhaydeeda aan saaray hadaa ishayda xataa saaray oo ana iyada leef isku aragna xataa wallahi ilaahay xaqeeda iga soo bixiyo marka waa idin salaama walaalahay waa idin jeclahay insha Allah la share gareeyo